Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada channelkayga ayaan walaalahey qaaliga waa idin salaamay. Maxaa sameysan rabnaa pasta macaroni ayaa sameysanayna insha Allah. Waxaan inta ku haysano dhan ayaan ka hagaajin doonaa. Soo dhawaada adina subscribe iyo like iyo share comment waa xaqiina kambaleel kala fursi muuqaalada ay ku dhaafin insha Allah. Videogana dhameysa waxba ha degdegin sidee ku soo baxda adiga ayaa arki doona. Waxaa ku sameysan kartaa hilib, waxaa ku sameysan kartaa digaag, waxaa ku sameysan kartaa kalluun. Aniga hadda waxaa ku sameysanayaa tuunaha gazaca ah. Intaan ayaan ka hagaajin doonaa wax dheeri oo kale ma ku dari doono insha Allah. Arki doontiin mas'aad wanaagsan idin la soo dhawaada walaalahey qaaliga ah. Halkan waxaan ku haysanaa waa 3 xabba yaanyo ah oo yar xabad maraq digaag iyo shiishid, soy sauce, garam masala, toonta shiidan, huruud iyo barbarooniga gaduudan ee shiidan, paprika u jeedin. 2 gasac oo malaay ah. Sidoo kale halkaas maxaa ku haystaa pasta macaroni nus kiilo, pasta cidi oo ka saabsan. Caana halkaas ku haystaa oo caano fadhi maala caana halkaas ku haystaa. Intaas ka hagaajin doonaa insha Allah. Waa simple waa alaab kale iska arag caruurtana aad u jeceliin way cunayaan masha Allah tabarakallah. Naftaadana ku casuum familkaagana ku casuum qado casho wixii aad doontada ka dhigin kartaa. Hadda dabka soo aadna biyo noo kulaaday biyo baasada cusbo waa noogu jiraan baasada ku shubi doonaa insha Allah. Kadibna suugada guda galeena suugada wax badan ma qaadanayso. Baasada hadda ku soo gadina waa u jeedin iskiilada waa wada karinayaa insha Allah. Baasada xoogaa xir karsay raqaada. Waa ka baasada waa ku soo wada shubay iyada dhammayd. Haddana waxa guda galeena suugada karinteedii ayada soo jarjarnaa insha Allah. In yar oo basal saliid yar ku soo shubay dabka dhinacaas iska saaray insha Allah inta baasada karkareyso. Ha isku soo shiilanto wax biyo ma ku dari doono ugu horreynta markaysan isku soo shiilanto isku soo qaleysanto. Ayaan haddana wixii aan ku dari lahayn dib uga dareena baasada noo karkareysa. Hadda ayadu way noo soo karkartay. Waxay miika dhaxmarna insha Allah dabool u dhiibaya markay huurto oo ayadu isku jajabto insha Allah ayaan jajabin doona si fiican. Qaadada marneena kadibna waa arki doontiin. Hadda waa kana way soo huurtay marka way maxaa la dhahay waa diyaar waa jajabinayna insha Allah soo qaadanayna qaadada tartiib u jajabinayna insha Allah u jeedin markaan kala simple way fududahay ayada markay bisishay markay ceerintaan isku mid ma markay bisishay jajabin badan ma qaado. Tartiibtaas asxaabteena qaaliga ku soo wadeena cashada waqti badan ka qaadanaysa qado waa ka dhigin kartaa casha ka dhigin kartaa wax alla waxa jeceshahay caruurta u samee. Insha Allah waa keeli doonaan iyo familka naftaada ku casuum. Aada hooyo tahay maxay ahayto way ku fududahay inta waxyaabo badan oo tiro badan aad karin lahayd uga soo tuur ilmaha in yar oo fudud xawaajiyaasha ama isku haysan dhamaantooda ku soo wada dara huruudi garam masala maraq digaag soy sauce toonti shiishidki iyo barbarooniga gaduudan intaas ku soo daro wax kale ku soo daray kabsar soo tumaya bas waan ku dari doonaa insha Allah. Iyo caanaha ayaan dib uga soo darayaa. Saas ku soo wadeena insha Allah hadda kabsartii caanihi ku soo daray caanaha xoogaa way ugu yaraayeen. In badan ay ku jirtaa meesha moodayeba. Intaas ugu filan igana badan 2 gasac oo malaay waa ku soo gadiyay iyo saliidoodii maadaama baasada saliid qoyaankan tirada badan uu hadhow tigeli doono. Saliid wax yar leh baasada korka ugu daraan badneen. Soo dhawaada intaana dabka u sii dhiibeyna insha Allah isku jabinayna waa dabkana waa ka damin doona barbaroonina waa ku darsan kartaa. Waan ka deyn kartaa iyo wixii kale dheeri ah haysatid markaas. Hadda daboolkeeda saarayna waa isku huurto in yar dhacaan oo yeelina insha Allah soo karkaraysa u jeedin. Baastadeena ku laabanayna oo hadda noo bislaatay oo noo diyaar ah soo miiri doona insha Allah xiro saliida korka uga soo daraya. Markii ay baastadaas diyaar noqoto suugada korka ugu gudinayna insha Allah suugadeena waa tan isku jajabiyay malaayga iyo wixii dhamaa waa inoo diyaar suugada mar dhow dabka ka daminaya haddii Allah awood loo qadar qaaday raasas u dhaxmarinaya waxaan tijaabinayaa qoyaankeeda inuu ku filayaa in kale hadda uu ku filayaa masha Allah baastada ku kor gudinaya waa isku dhax qasaya in yar meel dhigaya marka qoyaanka iyada la qi doonto insha Allah. Waa ka sahay asxaabi soo dhawaada. Hadda baastadii suugada dabka ka damiyay marka uu soo gudinaya waa isku dhax walaaqayna waa arki doontiin insha Allah. Baastadii noo bisil waatana oo diyaar suugada la dusha looga shubo alaabta ma is dhex gelinay
kaale iska arag ku dhahay ilmaha waxaa waaye hadaa ilmaha ama tid ka xiran yihiin oo ilmo cunto cun ay yihiin alaabtan kusoo tijaabi jikin mar ugu kari mar hilib shiidan ugu kari mar malaaygaas ugu kari macaan way jecel yihiin ilmaha maasha Allah hadda u jeedin suugadii dhan waa kusoo gadiyay miikaa qabanaya waa dhex marinaya wax yar meel dhiga waa huurinaya insha Allah kuleelka xogaa yar dhexdaas ka gasho soo marka isku soo noqonayna insha Allah saas isku dhex gelinaya soo dhawaada hadda is soo dhex geli waa u jeedin qoyaankii dhameed intee ka baxday meel ka baxday ma bal yaqaanaba waa kaas asxaabteyda qaaliga saas isku soo dhex gelinay waa soo guraya markaas ku soo baxdana waa arki doontiin markii wax yar ay isku hurto inta kulushaa la cun raba alaabtan caadi ma ahan ku dhahay macaan maasha Allah ayadoo nooc kale loo sameeyay insha Allah waa soo gelin doonaa hadda waa soo guran oo u jeedin saxankeena ku soo ridanay kabsar yar aad u soo daadinay waaw inaba caadi ma ahan soo dhawaad walaalahay qaaliga ah muuqaalka iyo daawada insha Allah degdegnina subscribe-ka like share-ka comment-iga hadda wax xageena muuqaalka xiga inta ku kulmi doono maxaan kaga tagayaa sidaas in nabadgelyo inoo kulantay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh